salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 23 bisha 10 sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya wiil ka mid ah dhalinyarada ugu caansan Muqdisho oo la toogtay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo galay Guriceel iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda oo kacsan farmaajo iyo Roble oo laba cadaadis oo mid ka mid ah uu kaga yimid dibadda ugu heshiiyay si degdeg ah shabaab oo xariif mi hiidin dhaliyatin faa'iido mi hiidin wallahi billahi war hatta baan nafsi xariifnimo baahanta war xariifnimada ka dhika baan bedelan miyo waa mid ka mid ah wasiirada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan wasiirka warfaafinta maamulkaasi waxa uu shabaab ugu baaqay inay xariifiin iska dhigaan oo qaraxyada ay u qaybiyaan Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabelle oo aysan ku koobin kaliya Koonfur Galbeed qaramada midoobana war cusub ay ka soo saartay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran iyo Mareykanka oo shaaciyay hal sabab oo kula dagaalami karo Shiinaha intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelkan haatan warkiyo fidsan goordhow waxaan eegi doonaa xaaladda Guriceel oo kacsan ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda oo galay qaybo ka mid ah magaaladaasi balse aanu si kooban u eegno mid ka mid ah dhalinyarada ugu caansan Muqdisho oo shalay lagu toogtay degmada Karaan ee Muqdisho koox dabley ah ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ah oo caan ka ah degmada Karaan iyo baraha bulshada Ayaanle Axmed Jamcaale oo duceysana loo yaqaanay ayaa lagu dilay xaafadda Nageyle ee degmada Karaan agaarka masjidka Maxamed Sheekh Cali waxaana kooxda hubeysan oo lagu sheegay burcad ay doonayeen inay ka dhacaan telefoon uu sitay dadka deegaanka ayaa sheegay in marxuum Ayaanle uu isku adkeeyay telefoonka kadibna ay burcadii toogteen kana qaateen telefoonkii iyagoo goobta ka baxsaday waxaana uu dhintay rasaastii lagu furay saaxiibada iyo ehelada wiilka dhalinyarada ayaa si weyn kaga naxay dilkiisa waxaana hay'adaha amniga ay ka dalbadeen cadaalad dhanka kalena ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa galay Guriceel waxaad u kacsan xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaana la soo warinayaa in ciidamada dawladda ay kuwa galmudug ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah degmada sida saldhigga booliska dugsiga tababarada ciidamada ee Harqaboobe oo ku yaala duleedka Guriceel iyo goobo kale ciidamo uu hogaaminayo gudoomiyaha galmudug ugu magacaaban Guriceel Anas Cabdi Macalin ayaa si nabada kula wareegay saldhigga magaalada dugsiga Harqaboobe kadib markii ay dib uga gurteen ciidamada taabacsan Ahlus Sunnah ee toddobaadkii u dambeeyay gacanta ku hayay Guriceel qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay degmada Guriceel waxa ka socda qaax iyo kala carar waxaana laga saarayaa dadka waayeelka gaadiidka ayaa isdhaafaya qof walbana waxa uu aaday jihada ay isleedahay wad ku badbaadi kartaa xaaladda waxaa sii adkeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo ka soo ruqansaday fariisimihii ay ka sameysteen duleedka Guriceel dhankooda ciidamada Ahlus Sunnah ayaa qaybo ka mid ah magaalada waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh goob joogayaal ku sugan Guriceel ayaa soo sheegaya in magaalada ay ku dhax roondeynayaan ciidamada Ahlus Sunnah cabsida dagaal ee ka taagan Guriceel waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay ay israsaaseen kooban duleedka waqooyi ee magaalada ku dhaxmartay ciidamada Ahlus Sunnah iyo kuwa hogaamiyo gudoomiyihii Guriceel ugu magacaawna galmudug oo haatan dib joog ah magaalada ciidamada dawladda ayaa xalay duleedka Guriceel ku soo bandhigay dowlatus waxaana laga cabsi qabaa in saacadaha soo socda ay weeraraan Guriceel oo 1 bishan Oktoobar ay qabsatay Ahlus Sunnah tan iyo maalinkii Ahlus Sunnah ay la wareegtana gacan ku haynta Guriceel galmudug waxay bilowday guluf dagaal oo ku wajahan Guriceel lama oga sababta ka dambaysa in ciidamada Ahlus Sunnah ay baneeyeen qaybo ka mid ah magaalada sida saldhigga booliska oo haatan la soo warinayo inay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan galmudug iyo kuwa dawladda federaalka kuwaasi oo gudoomiye Anas uu hogaaminayo
geesta kalena farmaajo iyo rooble waxaa la sheegay 2 cadaadis oo mid kamid uu kaga yimid dibadda oo sababay in si degdeg ah ay u heshiiyaan madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muuqda inuu tanaasulay ra'iisul wasaare Roble isagoo ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay'adda NISA ee uu magacaabay oo ahayd xudunta khilaafka labada mas'uul heshiiska ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha cadaaladda hayeeshee waxaa hay'adda NISA baaqi ku sii ah qaar ka mid ah dadkii kiiska lagu tuhmayay taasi oo shaki gelinaysa in cadaalad ay heli karaan qoyskeeda dadka sida weyn u falanqeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ku yimid cadaadis 2 dhinac oo ka socday mid waqtiga uu keenay iyo cadaadis kale oo ka yimid beesha caalamka waxaa muuqanaysa in 2 dhinac ay la kulmeen cadaadisyo xoog leh kadib markii khilaafkooda uu dibadda u soo baxay isla markaana xal laga gaari waayay beesha caalamka oo ugu horeeyaan Mareykanka midowga Yurub iyo midowga Afrika ayaa qoraallo ay soo saareen waxay ugu baaqeen 2 mas'uul inay xaliyaan khilaafkooda si arrintaasi aysan u xagal daacin amniga iyo xasiloonida dalka sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in qayb ay ka tahay culaysyada horseeday heshiiska 2 nin arrimaha doorashooyinka iyo dardargelintooda khilaafka Roble iyo Farmaajo intii uu tagnaa waxa uu saameyn ku yeeshay wada shaqaynta 2 xafiis warbaahinta dawladda iyo goobo kale oo muhiim ah geesta kalena wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa shabaab ugu baaqay in qaraxyada ay u qaybiyaan Jubbaland, Galmudug, Puntland, Hirshabelle oo aysan ku koobin kaliya maamulka Koonfur Galbeed warkaas iyo wararkeena kale waxay noo faahfaahinaya wariyaheena waad maasantahay halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaanu siyaan baqaadno qodobada warka janalkana wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Ilyas Cali Nuur oo shacab badan kula hadlayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Baay ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan degmooyinka iyo deegaanada hoostaga gobolada Baay iyo Bakool wasiir Ilyas ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay qaabka al-shabaab uga howlgalaan deegaanada Koonfur Galbeed oo ah mid ka duwan qeybaha kale ee dalka taa oo kamid ah buu yiri godoominta ay galiyeen deegaanada qaar ee maamulka Koonfur Galbeed oo aanan ka jirin meelaha kale ee dalka wasiirka ayaa shabaab ugu baaqay in qaraxyada dilalka iyo godoomintaba ay si cadaalad ah ugu qaybiyaan maamulada dalka ka jira wuxuu tusaalooyin u soo qaatay maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle oo uu sheegay in deegaanadaasi ka hirgeliyaan dhibaatada ee deegaanada Koonfur Galbeed ku hayaan oo kale wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa si gaar ah baaq ugu diray xubnaha shabaabka ka tirsan ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo uu sheegay in dadkooda loo adeegsanayo dhibaatada dadkooda ay ku hayaan aysan ka jirin qeybaha kale ee dowlad goboleedyada wasiirka ayaana sheegay wax lala yaabo ay tahay dhacdadii ugu dambeysay ee shabaab ka geysteen duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ay qaraxyo ku qarxiyeen gawaari dameero raashin u waday deegaano kamid ah gobolka Bakool geesta kalena guddiga doorashooyinka federaalka ayaa war ka soo saaray xaaladda aqalka sare iyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga doorashada heer federaal ayaa bogaadiyay dhamaystirka doorashada aqalka sare ee maamulka Jubbaland oo lagu doortay 4 xildhibaan ee harsaneed xubnaha aqalka sare ilaa iyo hadda la doortay ayaa hadda waxa ay gaarayaan 52 xubnood oo kamid ah 54 xubnood ee goluhu uu ka kooban yahay waxayna 2 xubnood oo kaliya ku dhiman yihiin maamulka Galmudug guddiga ayaa ugu baaqay maamulka Galmudug inay soo dhameystiraan xubnaha aqalka sare ee ku dhiman si aqalka sare uu dhameystirmo xubnaha aqalka sare qoondada haweenku ka heleen ayaa hadda 14 xubnood oo u dhigmata 26% tirada guud ee aqalka sare ee ka kooban tahay dhinaca kale guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in ay diyaar garow xoogan ugu jiraan hirgelinta doorashooyinka golaha shacabka oo la filayo toddobaadyada soo socda inay ka bilowdaan qeybo kamid ah dalka siiba waxa isha lagu hayaa in doorashada xubnaha golaha shacabka ee xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi laga gudagali doono magaalada Muqdisho halka Jubbaland la sheegayo iyaduna in laga yaabo inay toddobaadka soo socdo bilowdo doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee qaramada midoobana waxa ay war cusub ka soo saartay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran
wakiilka joogtada ah ee dalka Ireland u fadhiya qaramada midoobe ahna gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa xubnaha golaha u diray 2 warqadood oo ka hadlaya arrimo la xiriira suurtagalnimada in wax laga bedelo cunaqabateynta hubka ay saaran Soomaaliya iyo tallaabooyinka looga hortagayo maalgelinta Al-Shabaab. wakiilkan oo warbixin kooban ka siinaya golaha ammaanka shaqada guddi hoosaadka ee Soomaaliya intii uu dhaxeysay Juun 15 ilaa Oktoobar 20 ayaa intaasi ku daray in waraaqadaha ay sidoo kale ku saabsan yihiin cusboonaysiinta liiska cunaqabateynta iyo la dagaalanka xadgudubyada oo ay ka mid yihiin xadgudubyada galmada iyo midda ku saleysan jinsiga. dowladda Soomaaliya ayaa dhowr mar qaramada midoobe waxa ay ku tilmaantay inay caqabad weyn ku tahay awoodda ciidamadu ay kula dagaalami lahaayeen xoogaga xagjirka 1992 ayay markii ugu horeysay qaramada midoobe ee Soomaaliya saartay qaraar ku lambareysan 733 kaas oo Soomaaliya u diidaya inay iibsato ama dhoofsato hubka iyo agabka ciidamada. waagaagii daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan Mareykanka oo shaaciyay hal sabab oo uu kula dagaalami karo Shiinaha. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono Taiwan haddii Shiinaha uu soo weeraro, taas oo u muuqata in uu ka baxo mowqifkii siyaasadeed ee muddada dheer uu Mareykanku arrintaasi ka taagnaa. hase yeeshee afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa markii dambe uu sheegay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka in hadallada madaxweynaha aysan ka turjumeynin isbedel dhanka siyaasadda. maxay yiraahdeen Biden iyo aqalka cad? munaasabad ka dhacday hoolka CNN ka qaybgala ayaa tixraacay warar dhawaan soo baxay oo sheegayay in Shiinuhu tijaabiyay gantaal aad u dheereeya, wuxuuna weydiiyay Mr. Biden haddii uu ku dhaaran karo ilaalinta Taiwan iyo waxa uu ka sameyn doono horumarka militariga Shiinaha. Mr. Biden ayaa ku jawaabay haa, wuxuuna intaasi ku daray in aanan loo baahnayn in laga walwalo in Shiinuhu uu sii xoogeysanayo, waayo Shiinaha, Ruushka iyo caalamka kaleba way ogyihiin in military ahaan aan adduunka ugu awood badannahay buu yiri. waxaa mar labaad su'aal ka keenay wariyaha CNN oo weydiiyay haddii Shiinuhu uu soo weeraro Taiwan in Mareykanku uu difaaci doonay in kale. haa, waxaa naga go'an inaan arrintaasi sameyno ayuu yiri Mr. Biden oo ka jawaabaya su'aashaasi. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa markii dambe muujiyay in uu gadaal uga gurtay hadalkii Biden, asagoona warbaahinta uu sheegay in Mareykanku uusan waxba ka bedelaynin siyaasadiisa. ma ahan markii ugu horeysay oo ay arrintaasi dhacdo. bishii Agoosto Mr. Biden ayaa mowqifkiisa kan la mid ah ka qaatay mar uu wareysi siinayo warbaahinta ABC News. aqalka cad ayaana sidoo kale sheegay in aanan la bedelin siyaasadda Mareykanka ee Taiwan. Mareykanku lama lahan Taiwan xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah, balse waxa uu ka iibiyaa hubka asagoo adeegsanaya sharci uga yaala xiriirka Taiwan, kaas oo dhigaya in Mareykanku uu jasiiradaasi siiyo taakulada ay u baahan tahay si ay isku difaacdo. wuxuu xiriir rasmi ah la leeyahay Shiinaha. wuxuu sidoo kale aqoonsan yahay mowqifka Shiinaha ee ah in Shiinuhu uu yahay hal dowlad oo qura. haddaba sidee Shiinaha iyo Taiwan uga jawaabeen arrinta Mareykanka? xafiiska madaxweynaha Taiwan ayaa sheegay inaysan isku dhiibeynin cadaadiska la saarayo, isla markaasna aysan degdegeynin marka ay taageero hesho. afhayeenka madaxtooyada Taiwan ayaa sheegay in Taiwan ay ka go'an tahay inay isdifaacdo, wuxuuna u mahadceliyay maamulka madaxweyne Biden oo uu sheegay inuu taageero la garab taagan yahay xukuumadooda. Shiinuhu weli wax jawaaba kama uusan bixin hadalka Biden. hase ahaatee gelinkii hore ee Khamiistii ka hor hadalka Biden, safiirka Shiinaha u fadhiya qaramada midoobe ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu qaadayo tallaabooyin khatar ah oo xaaladda Taiwan u horseedi karta inay u jihaysato meel qaldan. haddaba maxaa xumeeyay xiriirka Shiinaha iyo Taiwan? Shiinaha iyo Taiwan ayaa la kala qaybiyay intii uu socday dagaalkii sukeeye sanadkii 1940 markii Taiwan ay u sheegtay inay tahay dal madax bannaan. Shiinuhu wuxuu u arkayay inay tahay gobol ayada ka mid ah oo gooni u goosada oo mar uun dib ugu soo laabanaya dadweynaha Shiinaha haddii laga fursan waayana xoog lagu muquunin karo. haddaba sidee Taiwan loo maamulaa? jasiiradaasi waxay leedahay dastuur iyada u gooni ah, hogaamiyaal si dimuqraadi ah loo soo doorto iyo ku dhowaad 300,000 oo ciidan ah oo si buuxda u qalabeysan.
haddaba ma jirtaa cid aqoonsatay Taiwan? dhowr dal oo qura ayaa aqoonsadeen Taiwan, waxayse dunida badankeeda aqoonsan tahay xukuumadda Shiinaha oo fadhigeedu yahay Beijing. guud ahaan daawadayaal wanageynta warki oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan haddaad nagu cusubtiin nagu soo biro subscribe saare janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada 24 saac halkan ku baahino. aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.